waxaan u yeerayaa gudoomiyaha xisbiga KULMIYE ee gobolka Maroodijo Hadal Cabdi Xuseen. runtii waxaa farxad weyn oo aan la soo koobi karin innaha oo dhammaanteedna aynu ku wada raaxaysanano kula wada farxanno muuqaalka iyo taageerada aynu u hayno Cabdiraxmaan iyo xisbiga uu iska sharaxaya xisbulxaakimka xisbiga KULMIYE ee aynu maanta halkan isugu nimid kula muujinayno in aynu muujinno taageerada iyo taageerayaashu sida ay u milaysan yihiin oo runtii dhacdo ama kulan taariikhi ah oo maanta taariikhda geli doonta haddii uu ilaahay idhaahdo waxaan marlabaad u mahadinaynaa ciddii ka soo shaqaysay ciddii soo qabanqaabisay waxaanu leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin marlabaad anigoo ku hadlaya magaca xisbiga KULMIYE gobolka Maroodijo waxaan aad iyo aad u soo dhawaynaynaa oo haddii aad tihiin taageerayaashii Cabdiraxmaan odayaashii uqaashii dhallinyaradii haweenkii aanu ka guddoonnay kal iyo laab si qalbi furan Cabdiraxmaan aanu ka guddoonnay inuu ka mid noqon doono haddii uu ilaahay idhaahdo murashaxiinta u tartami doonta caasimadda Hargeysa golaheeda deegaanka haddii uu ilaahay idhaahdo. aad iyo aad u mahadsan yahay gudoomiyaha gobolka Maroodijo ee xisbiga KULMIYE. markan waxaan u yeerayaa xildhibaan Yuusuf Shiraf Cawad oo si uu sawirka ka dawaaya aragnimada xildhibaanimada golaha deegaanka oo halkan anigu waxaan ahaa xildhibaankii beesha inkastoo aanay beeshu isoo dooran oo berigii anigu aan meesha ilmi xisbiyada la dooranayay ee aan shakhsiyaad la dooranayn haddana cidda beesha matasha ayaan ahaa. anigu markii aan Cabdiraxmaan inta uu jiray waktigii nacabku ina haystay ay ahayd anigoo jaamicad ka soo baxay ayaa qori aakaaya iyo 4 khasnadood Hargeysa ka qaatay anigoo weligay miyi arag baan lugeeyey 10 sannadood oo intii cimrigayga ugu qiimaha badnayda ayaan aakaasi waxaan ka mid ahaa 31 May ciidankii karinta Sheekh Madar ka soo dhaadhacay ee dagaalka ka bilaabay qaybta 26aad oo ahayd meeshii ugu xooga weynay 5 aroornimo ayaa ku dhaawacmay magaalada Hargeysa xinjirahayga yaala waxa aan sidaa u samaynayay waxa aynu helay maanta ee quruxda badan ee doorashada ah ee dimuqraadiyadda ah ee wadajirka ah ee nabadda ah oo aan aad ugu faraxsanahay ayaan 10 sannadood badhiigayga u daalinay. waxaan leeyahay Cabdiraxmaan wuu iga nasiib wanaagsan yahay iyo in badan oo kale aniga ayaana sacaadahaydi waxay ku dhaceen xilligii dalka la xoreynayay laakiin iyagu waxay maanta taas u haystaan in dalkii oo nabada oo dimuqraadiyada oo la isdooranayo oo xafladda quruxda badan iyo guriga quruxda badan la fadhiyo in lagu caleemo saaro ayay taas ku heleen. waxaan maanta halkan isu soo taagay waan u baahnaa in aan laygu hiyo oo intaasoo qof isoo hor fadhiistaan laakiin waxa aan goostay wadajirka beeshayda iyo xisbiga aan ka soo jeedo iyo xisbiga aan ka soo jeedo
وأن دون يبيش إننا يتفرار خيالا أي ميل ولا مرتو أيان أنا بكيون عدنا إيويديسن عدنا إلى إيمان أن بوستئنا كتر الشلوك وإن في إغيرا وإن عبد الرحمن وعروضة إلى أينية إن هو ريديو وكوي أقول له قاتي إن حريو وأيامه أي قروح بالنابان حتى يكون يفوز مابين أيام إيش يكون ريديو هذه المعرفة هاي يوسف كده أول كنت محشر هاي يوسف في لغة بدي ما كان مناسبة كده هذا وقت قوي نقول يا راوين مسؤولين تيجوا مدام تقامات تيجوا عندي كلام هذا الصبح عن كل سنة يا إن البداية يقولون الصوت عبيان مركز واحد يا ريا نقدر يلا أو يسوي كل هذا يا مجا عدل يلا وعبد الكريم أحمد الوجه إن ولكن عبد الرحمن محمود عيديد مركز مع مركز بينهم أنا مبتدئ صاحب الأفراح بدل المفروض يعني يصير يسمعني الآن اللي هذا عبد الرحمن هو المشي يعني ومثل يا بندقاء يوسف وراح إن سمعني الآن أي كفر الناس يعطوك كل سنة هذا واحد وقف أي نقاني ونصوص شاهدني وواحد كفرني قبل كل واحد ويلاحظوا وردي بروك سنة كيشان في سنة مرة دوشة في العطو هذا هو واحد أنا بقول دوشة حتى المجلس عبد الرحمن في المسألة يا عمساء وصول هنجين سنة وحيوبا عنتاي إلا نبدو عاصمة تسمي كرتا عاصمة لها أجوب كتشنا خاصنا وحيوبا هي المرأة ديان كوب سنو دبل أرانتي وهنجين سؤوله وهو هيا qorshe ay ku horumarinayaan oo halkiisa ay ka dhigayaan maxay magaalo qurxoon oo nadiifa oo wadooyin leh oo haddii dadka caalamka inooga imanaya ay doonaan inay maalgashadaan u helaysa meelihii ku habboonaa ee dadkaas ay ka dhisan lahaayeen hurmeelo waaweyn meelo lagu ciyaaro meelo dadku isugu yimaadaan cabdiraxmaan markaa aragtidaasuu matalayaa saaxiibadii kula socdaan فرجع يوكي شيء يقول له أقول له يا ما قدر عبد الرحمن تبعه يهذا كلام ولا يا والجديد عبد الرحمن هو يمين حوالي 200 متر فيه عبد الرحمن يمين شو صار عبد الرحمن ما تقول بعني هاي ما تكابل بدامه إلا راسه كلمة الله يدامه قارن له وهو وحبا على وجه حري يخدم وجه oo ku hadlayay afka dhalinyarada goordo waxaan dib la qaadaya hadalka yara basay oo malaha waa yara caajiseen inaan asan soo istaajiyo kooxda dhalinyarada oo inta ay dhaqanka ciyaari doona laakiin iyar hal samro iyar hal sigo markan waxaan u yeelayaa maareeyaha xafiiska tababarka madaxtooyada marwo aamina maxamuud diiriye si ay halkan iyo dadka meelaha أنا ديال برمات روحها سهل حفلة خالقة وحفلتي روحها جرى وحن أهمل إلى من ورد بيتين يا وحن أكن هنبليو بولادي يبقى مشاهدين مشاهد كوين خالقة يوسف كده حلو وروحي وقاليا ذكا وقاليا مشاهدة متعلمة إن بدأ سوشيالية